السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيلي هاي من في عين هاي وحنيدين رجينا يا خيري بش بروا. سوري هذا حنقولها على سوري هذا waxaan halkan rabaa inaan ka salaamo uga mahad celiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxa weeyaan wax badan ma waqti badan Soomaaliya gelinin asxaabta waxa weeyaan waqti dheer bay igu qaadatay inaan soo galo aad iyo aad baan mashquul u ahaa arrimo mataqaana aniga ii qaasa iyo shaqooyin baan ku mashquul ahaa. laakiin anigoo runtii maaragta walina waxa weeyaan aad baan mashquul u ahay laakiin waxay igu kalifay hadda inaan soo galo sad kor ku aragtaanba waxa weeyaan arrimo aan kala socday markaan waqti helo social media intaan arrintaa gelin waxaan rabaa halka inaan ka salaamo dhammaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed inta igu xiran asxaabtayda iyo inka arki doonta horta aad baa u mahadsantihiin. maxaan ku dhahaa waan idin mahadinayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin. soo dhawaada. assalaamu calaykum. muddaan idin kala maqnayn saan u sheegay mashquul baan ahay aad iyo aad baan runtii mashquul u ahay shaqooyin baan mashquul ku ahay marka way igu adkaatay inaan maaragtay wax soo gudbiyo. hadda sababta aan u soo galay horta waxa weeyaan ugu horeysa aan u soo galay inaan wax ka tilmaamo ama wax ka dhaho arrimahan ka socda maaragta social media khaasatan walaasheen maaragta gabadha hadda Soomaalida dhan aad ay maaragta uga hadlaysay Deeqa Afro. aniga aqoon uma lihi laakiin qof Soomaaliyeed baan ahay. waan arkay dad badan oo ka hadlaya in yar baan ka arkay laakiin maxaan ku dhahaa anigu ma rabo inaan horta aan dhaho qofkaas wuxaas u qabaa mana aan maaragtay dhakhtar ma ihi oo aniga dhakhtar maskaxda ma ihi qofkana aqoon ma ihi ma lihi oo meel kale joogtaa. waxay ugu noqonaysaa qadaf ama aflagaada ugu noqonaysaa haddaan dhaho aan diagnose gareeyo qof aanan ogeyn xaaladiisa ilana joogin ilana noolayn lana sheekaysan. waxay ugu noqonaysaa mataqaanaa gadaf qaf yacnihi dembi bay ugu noqonaysaa. waxaan marka rabaa inaan ka wax yaro taabto aan wax ka iraahdo aan ka taabto runtii arrin aad muhiim u ah oo ah dadka maxaan ku dhahaa gabadha hadalkay sheegtay waxa waaye maxaan ku rabaa haddaan dhinto ma doonayo in maaragtay maydkayga la duugay tiri. okay hadday tiri maaragtay ma doonayo maydkayga in la duugo marka maxaa ku kalifi karo qofku markuu saasoo kale u hadlo. aniga ujeedadeydu waxa waaye qofka markuu saasoo kale u hadlo maxaa kalifi karaya. marka waxaan ka hadlayaa waxa la dhaho waxaa la dhahaa claustrophobia. marka maxay tahay claustrophobia waxa waaye maxaan ku dhahaa waa cabsi. cabsida marka waxa waaye qofka cabsi maxaa keena afka Soomaaliga waxa waaye claustrophobia haddaan macnayno cabsi ama uu dareen cabsiyad baa qofka gelaya. markii dareen cabsiyad qofka galo waxa weeyaan waa dareenkaas cabsida waxa waaye wuxuu kaloo noqon karaa waswaas buu noqon karaa ama dareen cabsiyad buu noqon karaa. ayagu claustrophobia anaga waaga phobia dhaxnaa anaga waa qof kasta uu yaqaan Soomaaliya markaan joogno xataa phobia u naqaana qofka maaragtay wuxuu ka cabsado ama phobia ka qaba waxaas hal hays baan ka dhiganay. marka claustrophobia ama phobia-du waxa weeyaan bay leeyihiin markaan akhriyay ama aan maaragtay aan macluumaadka soo arooriyay waxa weeyaan waa cabsi qofka soo food saarta ama cabsi qofka qabata. okay marka
waxanu mar inay yihiin wax maaragtay iimaan la-aan u geynayso iyo inay mataqaanaa diin la-aan u geynayso iyo inay tahay wax maskaxiyan iyo in waxaas anigu ma kala sharaxay waxaan sharaxayaa maaragtay qofka iimaankiisa lama dhihi karo qofkii wuu iimaan la-yahay diintiisa yar lama dhihi karo laakiin arrintan diinta ku saabsan sheekh umal baa si fiican uga hadlay asbuuc ka hor oo runtii si fiican waan soo gelinayaa halkan si fiican buu u kala dhigdhigay waswaasku intuu qaybood u kala baxo iyo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabta xataa qaar badan oo kamidu inay qabeen oo kuwa saxaabtii kamidu xataa quraan qaar looga akhriyaa jiray qaarna wayba ku dhinteenba iyagoo sidii u qaba marka waxa waaye waswaaska leebelada uu leeyahay ama siduu u kala qaybsamo si fiican buu sheekh umal alla khayr siiyo u kala dhigdhigay anigu waxaan hadda rabaa halkan inaan ka hadlo maadiin sida waxa qofka dareenka wuxuu dareemayo waxa keena iyo waxaan rabaa iyo siduu u qaybsamo horta sidiisaba 3 qaybood buu u qaybsamaa qayb waxa waaye waa qayb oo qofku uu ka boqo waad aragtay wuxuu ka baqaa tareenada kaleeto wuxuu ka baqaa diyaaradaha wuxuu ka baxaa qololka mugdiga ah wuxuu ka baqaa maaragtay liftiga oo kaleeto inuu raaco ama liftiyada wuxuu ka baqaa qaar baa ciidda ka baqa qaar baa waxay ka baqaan caarada qaar baa wax maska ka baqa qaar baa mataqaanaa waxay ka baqaan cuntoga xataa cuntooyinka qaar ka baqaa jira marka bisadaha qaar ka baqaan qaar waxay ka baqaan maxaan ku dhahaa eeyaday ka baqaan marka waxa waaye waxaan qayb kamida waxa waaye marka haddii ay weynaato marka dad badan waxa weeyaan way maareeyaan waxay ku maareeyaan waxa waaye waxa ay ka baqaan oo dhan bay iska ilaaliyaan haddii meel mugdi ay tahay ma galaan hadday tahay maaragtay diyaarad ma raacaan dad badan oo raacin baa jira hadday tareen tahay ma raacaan haddii ay mataqaanaa qol ama badda xataa oo kale dad baa ka baqa ma galaan doonyaha dad baa marka waxay iska ilaaliyaan qaar badan waxay iska ilaaliyaan inay wixii ay ku keenayay maaragtay maxaan ku dhahaa phobiyada ku keenayay ay iska ilaaliyaan midda kale qaar waxa weeyaan waxay ka baqaan social phobia waxa waaye socialka bulshada inay dhex galaan bay ka baqaan inay bulshada dhex galaan oo aysan bulshadii mataqaanaa ay dhex galin bay ku dadaalaan oo bulshada ka cabsanayaan way ka cabsanayaan publica meelaha bulshadu ku sugu imaanayso oo dhan bay ka cabsanayaan inay dadka dhex galaan maxaa la dhahayaa maxaa magaciisa cabsi baa ku jirta iyo baqdin qaarka kaleeto mataqaanaa marka waxay qaybta saddexaadna waxay leeyihiin waxa waaye maxaan ku dhahaa inuu qofku uu maaragtay stress ay isu bedesho oo ah maxaan ku dhahaa stresskii baa wuxuu noqonayaa maaragtay mid culus iyo mid khafiif ah haddii uusan qofku maaragtay wax ka qaban waxaa dhici karta inay isu bedesho maaragtay khasab bay ku noqonaysaa inay isu bedesho maaragtay stress weyn inay isu bedesho oo uusan asagu iska daaweyn oo wixii ku dadaalin si uga soo bixi lahaa ama mataqaanaa uga noqon lahaa marka waxay leeyihiin halkan maxaan ku dhahaa anxietygaas stress bay isu bedelaysaa iyo maaragtay inay severe midda ah waxay isu bedelaysaa oo saddexaad waxa weeye panic attack waxay dhahaan qofkii waxa waaye panic attack baa ku dhacaya marka panic attack markuu ku dhaco markaas waxay imaanaysaa qofkii marka halkan weeye marka inta sida aan maaragtay runtii la rabo waxyaalaha marka qofka ku imaanaya ama uu dareemayo markay commonka ah maxay tahay waxa uu dareemaa qofka waxay ku leeyihiin waa anigii soo sheegay beeluhu ka boqo dhan baa soo sheegay maxaan ku dhahaa xataa qaar baa kaarwaashka ka baqay dheheen intaas waa soo sheegay waa ka gudbayaa laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo halkan qaar baa waxay ka baqaan iskaanka qofka dhakhtarka markuu iskaanka la saarayo maxaan ku dhahaa MRI-ga iskaanka qaar baa ka baqa marka waxay ku leeyihiin marka uu qofkaas MRI-ga iskaanka hadduu ka baqo uu is og yahay dhakhtarka oo kale ballan hadduu ku leeyahay waa inay ballanta dhakhtarka uu dhakhtarka u sii sheegaa intuu ballanta leeyahay dhahaya oo dhahaa waxaan qabaa phobia ah MRI-ga baan waxaan ka qabaa phobia oo mataqaanaa marka dhakhtarku wuxuu ku dadaalayaa inuu meel uu maaragtay si uu kaleeto wax ugu soo maaragtay
ugu arrange gareeyo waxa marka hadda aan ka hadlayo waxa waaye maxay tahay waxyaalaha lagu garto ama qofka maxaa ku dhaca markay qabato qofka mar bay qabanaysaa mar dhow baan usoo gelayaa deeqa iyo sida ay u dhici karto anugu ma dhahayo way qabtaa waa taan sheegay waxay qabtaa ilaah baa iga og laakiin waxaan ka hadlayaa dadka cabsidaan ka hadlaya cabsida waxa geliya inuu qofku uu wax ka boqo hadduu qofku godka ka boqo oo geerida markuu dhinto wuxuu laga yaabaa laba cabsiyood baa noqon karta inuu qofku ka boqo oo dhaho ilaahay maxaan la hortegayaa waa dhici kartaa oo diinta islaamka markii laga hadlayo uu dhaho rabbi maxaan la hortegayaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo dhici karta inuuba ka baqaba godka laftirkiisa iyo lagu duugayo markay ilaahay maxaa hadda ninkii haddaa xasuusataan maxaan ku dhahaa nin waxaa jiray qisooyinka mataqaanaa diiniyanka ku jira nin oo markuu dhintay ka baryay codsaday in mataqaanaa la gubo marka ninkaas markuu codsaday in la gubo mataqaanaa ilaahay markuu ilaahay qof walba waa u tagayaa ama ha la gubo ama ha noolaadee ninkaas wuxuu codsaday in la gubo markuu la codsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkiibuu u yeeray wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaa codsatid inaad gubo inta ay gubtaan buu yidhi maaragta dambaskayga inta gubtaan hawada raaciyuu dhahay ninka dambaskayga hawada raaciya markaad gubtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka waa u yeeray wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay inaad tirahdid hala igubo dambaskayga hawada raaciyo wuxuu yidhi ilaahayow waxaan ka cabsaday oo aan maadaama aanan shaqaysan oo waxba shaqaysan waxaan ka cabsaday wejigaaga saan ku imaan lahaa hortaada saan ku imaan lahaa darteed inaanu kula kulmin baan u iri hala igubo oo markaa dambaskayga ama ashkayga hawada hala raaciyo marka ninkaas cabsida ilaahay uu ka cabsanaya ogeey marka dadka qof baa saas oo kale ka dhici kartaa marka hadda waxa ay ku leeyihiin waxyaalaha qofka lagu isku garan karo in uu mataqaanaa qabo maaragtay maxaan ku dhahaa phobiyada ama maxaan ku dhahaa agalo maba dhihi karo colostrophic uu qabo waxa waaye kow waxay ku leeyihiin waxa ka mid ah symptomska waan ka hadlayaa anxietyga markay weynaato waxyaalaha uu dareemayo panic attack ku dhaco panic attack marka symptomskiisaas waxaa ka mid ah symptomska oo maxaan ku dhahaa cause physical symptoms waxaa ka mid ah sweating inuu qofku maaragtay uu dhidido waxaa ka mid ah inuu qofku maxaan ku dhahaa kulaylka maaragtay hot flash bay dhahaan kulaylka markaad had iyo jeer wax hanfiyo kale ku soo galayo maaragtay oo kulul oo aad dareemaysin in basbaas lagugu gubay oo kaleeto oo basbaas kugu gumayo kale waxaa ka mid oo kaleeto in maaragtay neefta kugu yaraato aad neefta qaadan kari weysid waxaa kaga mid oo kaleeto in marka qofka inuu wax ku margadeen oo kale ama wax ku istaageen dhuuntiisa u dhahayo baa ka mid ah waxaa ka mid ah maxaan ku dhahaa asagoo xataa neefta ku celcelinayo dhahaya waxaa ka mid ah xabadka oo maxaan ku dhahaa xanuun ka fuulayo oo maxaan ku dhahaa xanuun ka fulmay ama xabadkiisa soo yaraanayo uu dareemayo inuu xabadka soo yaraanayo waxaa ka mid ah maaragtay inuu maaragtay wax dareem oo xanxanto kala uu ka dareemayo iyo xirxir calooshiisa waxaa ka mid ah inuu qofku uu dareemayo inuu xanuunsan yahay madax xanuun baa ka mid ah waxaa ka mid ah inuu dhacdhici rabo oo qofku mataqaanaa uu suuxo dadka qaar baa suuxa markaa waxaa ka mid ah mataqaanaa inuu maaragtay qofku uu dareemo inuu maaragtay kabuubyada siday nahayso kaleeto oo kabuubyadoo kaleeto inuu kabuubyoodo ama cirbado inuu jirkiisa lagu mudmudayo kalaa ka mid ah siduu qofku inuu cirbado ku mudmudayaan oo kale qofku waxa waaye dadka qaarka ka baqa maaragtay xataa waxay ku leeyihiin wuxuu u baahanayaa inuu mataqaanaa tooleedka musqusha ama aado maaragta dhagihiisa wuxuu ka maqlayaa baa lagu leeyahay maxaan ku dhahaa qofku dhagaha wuxuu ka maqlayaa baa lagu leeyahay dhawaaq baa ka baxaya dhagihiisa oo uu ka maqlayaa oo uu maaragtay dhawaaq baa ka baxaya waxaa lagu leeyahay confuse buu noqonaya wuu isku dardarsamayaa oo maaragtay qofku wuu isku dardarsamayaa marka waxyaalahaas oo dhan waxa waaye inuu wuxuu ka baqayaa oo kale mataqaanaa waxyaalahaas oo dhan marka waxa waaye waa waxa uu dareemayo midda kale midda xagga cilmis nafsiga ama psychology ahaan wuxuu dareemayaa baqdin fara badan inuu uusan maaragtay waxba kontrooli karin oo kontroolkii uu ka dhumay
inuu wuxuu dareemayaa oo kale inuu dhimanayo kale dareemaya wuxuu isleeyahay waa dhimanaysaa nafta ka bixisa oo nolosha oo dhan waxa isleeyahay khalaas waa dhimatay waa dhimanaysaa buu isleeyahay marka yacni waxa waaye qofku markuu isku arko waxyaalahaas oo kaleeto hadduu cabsi ku jirto waxyaalahaas oo kale isku arko waxaa la rabaa qofkaas inuu dhakhtar la xiriiro maaragtay oo uu sheego dhakhtar inuu la xiriiro u baahan yahay adinka laftarkiina maaragtay haddii dad saas oo kale ay nool yihiin dadkaas oo kaleeto hada yelsanina dhaqaatiirta u geeyay oo maaragtay dhakhtarka hala xiriiro waayo panic attack ama maxaan ku dhahaa panic heart attack buu ku ridi karaa qodad badan baa ku dhinta markay panic attack ku dhaco marka waxay ku leeyihiin waxyaalaha keena maxay yihiin hadda marka waxyaalaha keena waxan maxaa keena waxaa keena sida maaragtay waxyaalahan kaleeto oo qofka ku dhaca oo ku saabsan maaragtay maxaan ku dhahaa nafsiyada qofka ama cilmu nafsiga ku saabsan ama maskaxiyan ku saabsan ama jirahaan ku saabsan waxa qofka sidiisa bini aadanka noloshiisa maaragtay soo mara ayaa saameeya sidiisaba waxa qofka saameeya waa waxa noloshiisa soo maray waayo aragnimo ama maxaan ku dhahaa marka waxay ku leeyihiin waxa sidaan traumatic waayo aragnimo waxaad soo aragtay haddaad soo aragtay maxaan ku dhahaa qof oo hortaada lagu dilay oo kale maxaan ku dhahaa ama lagu kufsaday ama maxaan ku dhahaa gaari dilay ama maxaan ku dhahaa bahal uu cunay ama maxaan ku dhahaa adiga oo caruur ah aad la kulantay ama kusoo martay adiga marxalad qofku uu arkay wax ka arkay oo witness gareeyo oo uu arkay oo soo martay ama asaga ha soo marto ama ha soo marto maaragtay indhihiisu ha qabtaan oo wuxuu soo arkay oo asagu witness ka ah ha noqoto runtii uu arkay ha noqotee waxyaalaha uu keenayay dhaheen waxa kamid ah maxaan ku dhahaa waxyaalahaas waxa kaloo kamid ah caruurta markaad ahayd waxyaalihii aad arki jirtay haddii xataa adiga waaridkaaga aad la nooshahay uu ahaa qof qaba foobiyadaas oo maaragtay oo waswiskaas ama cabsidaas ku jirto oo cabsi qaba hadduu ahaa cabsidii buu ku gelinayaa aad ka dhaxlaysaa waayo had iyo jeer asaga oo xagga kaa xafiday wax kasta kaa celinaya hadduu diyaarad ka biqishir diyaaradiibu kuu diida hadduu xagga maxaan ku dhahaa mugdiga ka biqishira mugdigii buu diida qofka marka waxa waaye meeshii uu ku soo karay buu ku qaadanayaa maaragtay waa ka cabsanaya maxaan ku dhahaa marka qofkaas ito waxa waaye haddii uu maal maxaan ku dhahaa dadkaas oo kale waa dad iska noloshoo dhan way ka xirxiran tahay maaragtay ama meel qof maaragtay kii dhalayba maaragtay uu lasoo abiyus gareeya hadduu arko waalidkiis wax lagu sameeyey yacnihii wax badan baa keena bay ku leeyihiin ama ha noqoto experience ama maxaan ku dhahaa ha noqoto kolley waa experience bay adigu dhahaan wax waaye aragnimo qofku uu u leeyahay baa keenta innaguna waan garan karaynaa waayo waxa weeyaan kolley wax iska samaysmay ma jirto oo bilaa macno ku samaysmay waxbaa keena iyo markaqaana maxaan ku dhahaa sidii uu qofku waxa muhiimad ah inuu qofku waxaan iska yareeyo oo siduu ku dadaali kara isaga yareeyo marka waxaan rabaa inaan in yar wax ka sheego marka kusoo noqdo arrinta maxaan ku dhahaa soomaalida innaga haddaan nahay waan arkay dad badan oo ka hadlayaan arkay dadka badan oo aan ka hadlayo aan arkay aniga oo arrinta ka hadlaya aamina maxaan ku dhahaa gabadhan maxaan ku dhahaa deeqa afro arrinteeda dadka hadlayaan arkay horta kow waxaa la rabaa in la fahmo horta qofka bini aadanka ah in haddii aadan la jooginin in wax laga sheega inay xun tahay kow laba waxaa la rabaa in la fahmo qofka inaan lagu maxaan ku dhahaa shaabadaynin ayadan asagii kuu sheegin ama dhakhtar uusan kuu sheeginin in la dhaho maskaxiyan buu u jiran oo maskaxiyan ayuu u jiran dad badan waxaa jira aan maskaxiyan u jiranayn oo laakiin arrintan mataqaanaa ay iyaga mataqaan ay saamaynayso saan u sheegay qaarkood waxa weeyaan way shaqaystaan dadka ummadoo dhan way wada shaqaysataa ummadda aniga naag madax iyo ahayd waxa weeye waxay caaraday ka qabtay oo ay markay aragto qolka ay ku jirto ma soo geli karin marka ma soo geli jirin marka waxa weeyaan taa waxa la rabaa dadka inay dejiyaan inay ilaahay
in laga cabsado way fiican tahay ilaahayna inaan ka wada cabsano waa fiican tahay laakiin waxaa la rabaa ilaahay ha laga cabsado laakiin oo qofku ilaahay ha ka cabsado laakiin qofka xaaladiisa in la fahmaa la rabaa qofkan xaaladiisa waa in la fahmo waa in loo dajiyo waa in maaragtay dad badan oo aan maaragtay ها سانا ياشي ها إلهي كعبس كمان كان أخري كمان كوحة السوق ريان قف كان معها هذا مرة وحة يلقى بسنة يا قف كوحة اللي يقول لي هاي مركي قبضته بانيجا تاجا أو وحن أي منطقة أنا عبسدو أي بلاودو تريك بينها وحن تريك مركي قبضته قفك وحو سمينا يا أبا اللي يقول لي هاي waxa waaye qofkaas marka waxa waaye waxa la leeyahay meel alla meeshu joogo ha ku istaago meeshaas hadduu gaari wado meeshaas yu ka dhaqaaqin baa leeyahay gaariga ha dhaqaajiyo dhinaca sayd ha ka dhigo meesha ha ku istaago waxay ku leeyihiin normally waxay qaadataa ilaa iyo 30 daqiiqo iyo eber ilaa 30 daqiiqo inta u dhaxaysa bay qaadanaysaa intuu qofkaas xaaladaas uu ka soo laabanayo tan kaleeto waxa waaye gabadha hadda markay hadlayso waxa waaye xaaladeeda siday u sawiran tahay xaaladeedu ma ahayn xaalad ma taqaanaa qof oo ku tala gashay inay maaragtay maxaan ku dhahaa video maaragtay u soo labisatay ma ahayn laakiin waa laga yaabaa inay u geyso maaragtay inay xaaladeedu markaas ay qasnayd ama ay baalag attack haayay ama cabsi haysay ama waxba haysay wax waa dhici kartaa marka waxa waaye maxaan ku dhahaa haddii maaragta qofka loo tartiibiyo la waraysto la dhaho maxaan ku dhahaa qofkaas oo kaleeto haddii loo tartiibiyo oo tartiib loo waraysto iyadaan social mediaha laga qaylin iyadaan meel kasta laga qaylin xaaladiisa la waraysto in la fahmaa la rabaa marka qofka hadduu kuu sheego xaaladiisa in la fahmaa la rabaa wiil waxaa jira intaan social media cid kastaba ka soo hadlay oo yiri gabadha ayadoon cajalada soo duubin baan anigu la hadlay marka hadduu la hadlay wiilkaas markuu la hadlay wuxuu yiri waxay ii sheegtay inay program soo duubi karto heesaheedii baan u qaatay laakiin siduu u hadlaayay asaga laftirka ma ahayn si caawimaysa qof saas oo kale u fakiray marka fakarka ay ku fakartay waxa fakar cabsiyadeed baa keeni karta marka fakar cabsiyadeed hadduu keeni karo waxa waaye qofku inuu isku daaweeyo kow inuu mataqaanaa u tago dadka mataqaan ka hadlo waxay ku leeyihiin qofku waxa fiican arrintii uu ka cabsanayay inuu food saaro oo uu ka hadlo oo mataqaanaa uu asagii maaragtay uu arrintii dad waxaa jira maaragtay dadkan professionalka ama ha noqdaan therapist ha noqdaan ama mataqaanaa counseling ha noqdo ama maxaan ku dhahaa CBT-ga ama therapy-ga ha noqdo ama waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha anfacayay leeyihiin qofku inuu ka hadlo laakiin waxaas oo dhan waxaa ka fiican inuu qofka asaga iskiisa isu caawimo oo caawimaad dad mataqaanaa hadduu helayo dad maaragtay dee walaalihiisa mataqaanaa uu arrintii u sheegan karo inuu arrinta markiiba ka hadlaa fiican oo dhaho saasaan dareemaya maxaan sameeyaa kida sidameeya laakiin waxaa xun inaad la aamusido qol la geshid haddaad qol la geshid dhibaato kasta oo qol lala galo ama la isku xiro adiga hadhow qofka dhibaato aday ku keenaysaa naftaada u keenaysaa soo dhibaatada qol in lala gala ma fiican oo la isku xiro in laga hortagaa fiican in laga hadlaa fiican in mataqaanaa in meel xun kula gaarta ma fiicna hadda waxa weeyaan gabdhaha Soomaalida ah مليون هالنقطة قبلها الصومالي ده ديك هذا مركي أي سوشيالتين وسوشيال ميديا وشيالتين صومالي دي كله نباتة أكو هيسوي سيفو جانا يعني وحافي عن قبلها إن الدريمو ولا فهمه وأن ما تقارنا محنكو لها لجو ريحين أما لجو بشكرينين إن حالة ضد أما مرحلة ضد مش أسكسي فجاته مركا أيجنا وحافي عن إن هدي قف كستو إسكو أركا وحن ama symptomskan isku arkaa waa inuu ka hadlaa ka hortagaa self help wax ka fiican ma laha self helpka haddii aad adiga samayn weydid oo dadka kale ugeey ula tag maxaan ku dhahaa hospitaalada haddii aad tagtid oo u tagtid aad tiraahday waxaan dareemayaa baarig attack ama saanaan fiil garaynaya ayagaa ku diyaarinayaba maaragtay inay maaragtaa ay qof maxaan ku dhahaa psychotherapist kula kulmiyaan oo ay ku dhahaan qofkaas ay la xiriir ama la hada waayo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in qofku maxaan ku dhahaa uu iska daaweeyo
ان sidee baa maarta marka qofku u xallin karayo waan soo sheegay iyadana waxa weeyaan waa inuu qofku hadduusan asaga xallin karinin dhibaatada uu mataqaanaa u tago dad maxaan ku dhahaa professional oo uu sheegto problemkiisa dadka asxaabtiisa u sheegto iyo inuu maaragtay asagii uu arrintii conversation maxay dhaheen inuu ku sameeyo maxaan ku dhahaa asagu wajaho af Soomaaliga inuu wajaho asaga arrintii oo maaragtay asagu arrintii maaragtay wajaho isku dayo inuu iska xallin karo duusa iska xallin karina dadka la u tago saan sheegay waxa weeyaan marka uu ku dhaco qofku baaniga taaga markuu ku dhaco waxay qaadanaysaa bay ku leeyihiin 10 ilaa iyo maxaan ku dhahaa 5 daqiiqo ilaa iyo maxaan ama 30 daqiiqo markaas waa inuu maaragtay qofkaas uu meel fariistaa oo isdejiyaa oo isan jawaabin wax kale la samaynin oo uu mataqaanaa uu tartiib neefta u qaataa dadna markaas ka bacdina hadduu caawimaad raadsan karo oo caawimaad raadsadaa intaas yar aniga waxay iga ahayd inaan maaragtay waxa ay tahay foobiyadu aan ka yara hadlo iyo waxa laga yiri iyo wixii maaragtay haddii qofkaaga uu qabo ama adigu aad qabtid saad isaga yarayn lahayd iyo sidii maaragtay aad ula xiriiri lahayd hay'adaha qaabilsan maaragtay maxaan ku dhahaa barnaamijyadan maaragtay caawimaada ama maxaan ku dhahaa counseling ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa si kale oo qofka loo caawimi karo ama qofka asaga iskiisa ha isu caawimo ama bulshadu nool yahay dad uu ku kalsoon yahay ha u sheegto oo ha caawimaanaya asxaabtiisa waxa weeyaan midda kale aan kusoo gabagabaynay waxa waaye inaan qofka dhibkiisa sheegtay inaan lagu boodinin qofka waa in la dhageystaa la ogaadaa la waraystaa maxay tahay maxaan ku dhahaa dhibka ku haya sideed uga bixi kartaa muxuu yahay qofka markaad ogaataan dhibkiisa iyo waxa haya markaas ka bacdi ha la caawimo oo qof la isku dayo qofkii in la caawimo insha Allah waxaan soo gelinayaa sheekh Umal baan programkiisa soo gelinayaa uu kaga hadlaayo maxaan ku dhahaa waswaaska iyo leebeladiisa iyo maxaan ku dhahaa waqtiga asxaabta iyo heerkay gaarsanayeen iyo ina xataa dad u dhinteen taasaan soo gelinayaa fadlan waxa idinka codsanayaa qofkeena dhibaataysan Soomaali haddaynu qofkeena dhibkiisa la arko waxaan idinka codsanayaa in hadal haynta miidiyaha oo qaldan oo la samaynayo qofkii idinkaan ogeyn qofku ilaahay ka cabso way fiican tahay laakiin ilaahay ka cabso waxa laga yaabaa inuusan ilaah mataqaanaa ka furo uusan u samaynayno waxaan wax ka tan weyn ay ku keeneen marka waxaa la rabaa qofkii in la noo naxariisto oo la dareemo oo la yiraahdo maaragtay waan ku maqalay waa maxay ku caawinaa si xagaan kaas maxaan ku dhahaa yaa ku dhow yaad u tagi kartaa oo hadda dadka telefoonadii qofka haysta ay dhahan la hadal qofkaas maxaan ku dhahaa dadka yaa kugu dhow la hadal haye ya caruur markii lagu qabtay see lagu qabtay maxaan ku dhahaa dadka waa inay at least dadka maxaan ku dhahaa ay si fiican ula hadlaan laakiin inta halkaan soo qaaday warkeed maaragtay maxaan ku dhahaa waxa ku soo hadashay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim iimaan la'aan baa u geynaysa iimaan la'aan ma ah wax uu qofkan kan tanweeyay baa haysta shaydaanku iyo naftu way xiriiraan shaydaanku waa kan waswaaska dadka ku ridaya qofku waa kan meel dheer ka ridaya dadku waa kala dadka qaarna waa quwi qaarna waa daciif dadka daciifka oo maaragtay maxaan ku dhahaa aan maarayn karin arrimaha soo gaara oo cabsida waxaan waxa weeye waa dareen waa fakirkan marka waxa weeye hadduu kugu weynaado أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ترهدي هذا بيسن كقبستي هذا أذكار قصتي الصحابة بقى وحول كلية وقت النبي عليه الصلاة والسلام شيخ المركز نجسني أيها الصلاة تكنية بو صلاة دي بتكون سكستين تيالا مركز دعوة وإمارة يعني ما تقانا إليه صلاة دي بتكون أيها محن كلها أذكار تكشر قرآن كشر محن كلها كتجي واي وسواسكي مركز واحد وحكنوا معها واحد دين لأن كينيس وواحد كينيس نفتي يا شيطان كان لا والله وحليا وأقل يقفك ruuxiyadiisa uu galaayo oo ma taqaana uu controlayo marka waxa waaye
إن شاء الله waxa weeyaan qofka markaynu aragno waxaan waa baqdin iyo waswaas iyo waxaas waxa weeyaan markaan aragno waa inaan u dejinaa fadlan aniga waxa iga tala ah dadka in loo dejiyo oo aan la fogeyn sida maxaan ku dhahaa maama milyuun loo fogeeyay oo kaleeto qofku dhibkii markuu ka hadlo waa in la dareemaa oo la dhahaa okay la cawimaa qofkii iyadaan la wadwadin oo warkiisa la wadwadin oo la ilaaha illa allah maxamed rasuulullah maxay ku hadashay subhanallah 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 alxamdulillah maalin kasta waynu leena laakiin qofka waa in la dareemaa waa in la dareemaa qofka waa inaa xataa diinta lagu dirinin qofka waa inaan la fogeyn qofkii waa inaan wuxuu tabanayay oo feelingkii ama dareenkii hayay waa inaan lagu culusaynin culays loogaga dhigin oo lagu weynaysiinin hadduu ku weynaado chronic ku noqdana markaa waayo waxa ka dhici karta waxay ku leeyihiin isdil baa imaan karta inuu naftiisa gooyo marka nafta qofka waxa waayo qofkii waayo maskaxdiisa si fiican uma fikirayso waxaanba kusoo dhacaya marka waxa weeyaan waxaa la rabaa markaasoo kaleeto dadka cabsida ku jirto oo wax ka cabsanaya in loo fududeeyo marka insha allah halkaan idinkaga tagaa warka waan badiyay idinkoo iga raali ah intaa yartaa waxa weeyaan maadaama aan mashquulaha wallahi waxaan isiri intaas yartaa waa muhiim inaad ka hadashid marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayr baa idin rajaynayaa waa kaasaa waa inoo mar kale haddii ilaahay idmo dhaqso haddii ilaahay idmo assalaamu calaykum